sawri uu leeyahay musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee Barack Obama oo xiran labis Soomaali ah laguna faafiyay bog internetka oo laga leeyahay wadanka Mareykanka ee dalkaasi ayaa waxa la sheegay in ay kicisay duufaan siyaasadeed kadib markii la sheegay in Barack Obama uu xagga diinta Islaamka u janjeero. Sawirka waxa ka muuqda Obama oo gacan qaadaya oday Soomaaliyeed oo ay meel wada taagan yihiin. Haddaba waxaan waraysi la yeelanay odaygaasi oo ku nool magaalada Wajeer ee wadanka Kenya. Waxa uu ka mid yahay guddiga nabadgelyada ee gobolka Soomaalida ay degto ee wadankaasi Kenya. Magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Xasan Muumin oo loo yaqaan Dhukow. waxaana uu beeniyay in Barack Obama ay ka wada hadleen arrimo diinta ku saabsan. Yusuf Garaad Umar oo qadka telefoonka Wajeer kula xiriiray ayaa Maxamed Xasan Dhukow waxa uu weydiiyay bal in uu maqlay arrinta. wala ii sheegay oo nimanka hadda xiriirin haya way ugu imaadeen gaasad uu ku qoran yahayna waana ma sawirkaaga ma ku aragtay internetka ama jaraa'idka? waan ku arkay sawirkayga iyo ninka markaan u xirahay dhar Soomaali. maxaad istiri markaad aragtay masawirkaas? aad iyo aad baan ugu xanuunsaday oo oga naxay oo aad buu dib iigu keenay. maxaad adigu ugu tala gashay marka hore maxaad ninkan Mareykanka ah oo siyaasiga ah aad dharka Soomaalida ugu xirtay maxaad ka waday? ninkan uguma uusan imaanin siyaasi oo sidis bishii labaad buu meesha asoo dhaligeed wato oo dad la socda meesha noogu imaaday. anigu waxaan ka shaqeeyaa laanta nabadgelyada oo biiska la yidhaaha oon chairman u ahay. uu soo codsaday odayaalka inaan la kulmaan rabaa biiska nayin ma maqashaan si wanaagsan. markii uu noo imaadayna waa la dhaweeyey magaalada oo dhan madaxdeedii oo dhan baa dhaweysay. meeshii iida ahayd baa si annaga marka horeba caadan noo ahayd ninkii noo imaado oo ama meel kale ka imaado masana aan xusmaynayna dhar Soomaaliga cadcad baan u xiri jirnay. darkii baan u xirnay anigana gacantayda ugu xiray. markaad u sheegteen isagu ma diidin soo maaha dharka Soomaalida ku xirayna markaad tiraahdeen? maxaa tiri? isagu dood kama keenin soo maaha gooyaasha Soomaalida inaad u xirtaan mariha cadcad? dhaqankanadi waaye oo weliba ninkii oday oo la xusmaynayo marihii u xiran lahaa oo cadcada dabtada ahaa baan u xirnay. maxaad markaa ka wadeen? xushmad miyaa ka wadeen idinku? anigu nafteyda waxaan ka waday oo ama aan ka wadanay odayaalkaas ilaa 94 biiska meeshan intuu aan ka shaqaynayo nabadgelyada waxaan maalgelin hayay America. mashaacado weyn baan ka sheeganaynay. markii isaga uuna warsaday odayaalkaas baan rabaa uuna yiri xurmo dheeraad baan u sii haynay inuu sidii naloo saacideynayay isika yar noo saacideeya darteed ayaan aad adana usii danaynay. dharkii asaga ha oo marihii baftada ahayd u xirtay ma isaga qaatay mise wuu iska saaray markii dambe idinku kaga tagay? wuu iska qaaday markii asaga haba intii hadlayo dhanba meel buu iska dhigay markii lagu biijaynayo iyo waxaas ma uu rabin asaga. hadalkaas waan arkay aniga waan maqlay. haddii aad tahay ninkii laanta u weyn aad baan aga xumaaday. oday baan ahay nin dan diintiisa iska wata aniga diinku ma laazimi kari. mara aan u xirayna diinku ma uu noqon hayo. magacayga meesha lagu qorayna ficnaan looma qorin. aad baan uga xanuunsaday. ruuxii soo qorayna aniga maxkamad waxaan ahayn oo naga dhargaaya ma jiro. ilaa hadda cid kaloo kuu timid oo wax kaa weydiisay ma jirtaa amaad la hadashay adigu aad la xiriirtay? nimankan hadda ila joogo oo meeshan ninkan bash soo dhacay iyo ninkaas wax iga weydiiyey hadda maalmahan waa jiraan horteed wax iga weydiiyey ma jiro. Obama si aad ula xiriirtaan ma taqaanaan oo reer Wajeer hadda tihiin xiriir ma leedihiin hadda mise si aad ula hadashaan ma taqaanaan? inaan hadda kadib doono oon raadina ma ogeya hadda ka hor xiriir aan lahayn ama nin ii sheegay xiriir baan leenahay oo reer Wajeer hadda ma garanayo anna xiriir lama lahayn. haddii lacala uu ku maqlayo ama aad si uun loola xiriiri karo maxaad isleedahay adigu fariin maxaad gaarsiin lahayd? fariin waxaan gaarsiin lahaa Obama in gardaral loogu soo bereeray loo xaynayo masane wax uusan ahayn lagu sheegaya annagana nagula daray. annagana waan ka xunnahay baan dhihi lahaa haddii aan meel kula xiriira aan arko. maxaad isleedahay doorashada hadda tartanka uu u tartamayo wuxuu u ordayaa inuu madaxweyne ka noqdo dalka Mareykanka adigu ra'yi ma ka leedahay arrintaas seed u arkaysaa? waxaan u arkayaa aniga nafteyda ama aan jeclahayba inuu madaxweynenimada u helo weliba aan ilaahay u tuugi lahaa. maxaa yeelay
hadda oo banaankaa jooga baaba laigu dirahaya oo laigu dilahaya inuu madaxweyne hela ayaan rabi lahaa american ha noqda hadduu rabo maalintii uu idin yimid sideed u arkayseen maxaad ka fahamteen qofka shaksiga uu yahay ninkan nin wanaagsan oo xiriir wanaagsan idin la lahaa miyuu ahaa hogaamiye wanaagsan miyaa u arkayseen sideed u arki karteen hadee marka ayaga annaga amerikaannimo un baan u arkaynay wax uuna warsaday mase uu ka shaqaynayana dadkii amerikaanka marka hore maalgelin iyo wax ku sameeyey unbuu hawlahoodii iyo meelihii ay wax kada dhiseen iyo waxa unbuu fiilinhayay annaga dan kale kama aan siin lahayn laakiin markii nin xun oo tool habiib uma uusan ekayn wuxuu noola ekaa nin yara bashaash oo aan waxaana dhex mari karaan ninkii khayrkooda kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan dhukow oo u warramayay yuusuf garaad cumar